asalaamu calaykum khiyaartana dhegaysanaysa ay kulanti wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii aan uga hadlaynay dastuurka dalka soomaaliya. waa barnaamijkii 14aad waxaana dhegaystayaal idinla socodsiinaya anigoo ah ayaanle xuseen cabdi. ninkii wax xado oo alaab uusan lahayn xado waxaa lagu ciqaabayaa intaasoo sano. haddii marka xatooyada ayna dembiba ahayn, garsoorka madax banaanidiisa waxaa damaanad u ah xubnaha ka mid naqanaya mataqaanaa golaha adeeg garsoorka. arrin yarna oo markaan dastuurka sii akhriyey oo shaki lena waa ka arkay. sharci islaami ama sharci madani mid uu wax soo bartay qofka waa inuu yahay nin wax ka yaqaano arrimaha dastuurka. وإنسان عقلورها رقمنا إسلاميمو أمين ميديا والنبض لها شهر قد كنا يقرنيمو أمين ميديا أمين ميديا أمين ميديا. barnaamijkeenna waxaan uga hadli doonnaa hannaanka maamulka dawliga iyo garsoorka. dastuurka soomaaliya waxa uu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga ah, shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahay oo ku dhisan wadatashi, kala soocidda awoodaha sharciga ah, fulinta iyo garsoor madax bannaan. haddaba barnaamijkeennan waxa ay nagala qaybgalaya brofesor maxamed nuur cadow oo brofesor ka ahaa kuliyaddii shuruucda ee jaamicaddii ummadda soomaaliyeed, maxamed axmed gacal oo garsoore ka ahaa maxkamadda degmada qoryoole, abukaata cabdikariin maxamed oo ah sharciyaqaan ka baxay jaamicaddii ummadda soomaaliyeed. barnaamijkan oo uu inoo dhexdhexaadinayo cali shariif ayaa ugu horrayn waxa uu weydiiyey brofesor maxamed nuur cadow waxay kala yihiin saddexda awoodood ee dawliga ah iyo kala soociddooda. saddexda awood oo la sheegay waxay kala yihiin awoodda xeerdejinta iyo tan fulinta iyo tan garsoorka. awoodaha in la kala soco horta waxaa muhiima in la ogaado sababta ay ku imaadeen. sababta ugu horeyso ay ku imaadeen waxaa jirtay boqorka adduunyada markii hore boqorraha haysan jiray. boqorka asaa wax walba isku ahaan jiray, asaa garsoore ahaa, asaa madax ahaa, asaa xeerdejiye ahaa, wax walbuu samayn jiray. kadib arrintii dadkii dhibaato badanay u keentay, waxaa dhacay revolutiono badanaa dhacay oo maaragtay looga hor imaanayo boqorka. marka waxaa la bilaabay in saddexda awoodda kala qaybiyo oo la kala saaro si awoodda boqorka loo yareeyo. sida aada ogtihiin hadda adduunyada waxaa lagu dhaqmaayo heeb la yidhaahdo republica waxay ka socotaa yani awooddii shacabka way meeshii boqorka uu ka lahaa awoodda hadda shacabka lagu wareejiyey. marka awooddiina waa la kala saaray oo ninkii madaxda ah oo madaxweynaha ama prime ministerka iyo dadkaas waxaa loo dhaafay awood ah in ay wax maamulaan keliya, ay budget loo sameeyo, nin walba shaqo gooni uu leeyahay uu maamulo. si loo controlo marka iyada nafteeda waxaa dhacday in waxa la sameeyay baarlamaanka wuxuu controlaa yani howlaha garsoorka howlaha fulinta ayuu controlaa. ayaga dhanna waxaa sii control oo gebigoodba korka ilaaliyo garsoorka oo wax alla wixii sharci ahoo loo dejiyo waddanka. xeerjinta sharciga soo dejisaa, dawladda iyo muxuu ahaa way ku dhaqmaan, garsoorkana sharciga ayuu ilaaliyaa. maxaa muhiimadda marka ugu weyn oo loo kala saaray ay tahay in saddexdaas awood ay iscontrolaan oo meeshii ayn dhicin takifal iyo dhibaato ayna ka dhicin meeshii. muhiimadda ilaahay taas waa mahadsantaha brofesore gacal. waxaan ku weydiinayaa kala soocidda saddexda awoodood haddii la kala sooco maxay ummadda soomaaliyeed ka faa'iideysaa? haddii aan la kala soocinna maxaa dhibaato uga imaan kara? bismi illaahi raxmaan iraxiim. sida brofesorka u sharaxay ayaan horniga marka hore la qabaa. haddii aan la kala soocin waxaa imaanayo in saddexdii dowl ee hay-adood ee ugu sarreeyay dalka inay isqabsadaan oo halkaas ay ka dhashaan murano fara badan. wada shaqayntaas la-aanna ay keento in dalkii uu ku yimaado burbur. marka si burburkaa loo ilaaliyo waxaa muhiim ah in saddexdooda ay wada shaqeeyaan oo
burburkaas laga ilaaliyo waddanka ayay muhiim u tahay saasay ilata anigu leedahay. mahadsan tahay gacal. su-aasha kale waa cabdikariin, haddii khilaaf ka dhex dhaco saddexdan awoodood dhexdooda maxaa xal xagee la aadayaa? hadda markaan qabiqaraalka dastuurka aan fiirino macnaha khilaaf hadduu ka dhex dhaco maxaa lagu xalinaa kama hadlayo. waxaa laga yaabaa in sharciyo kale iyo qaanuuno mataqaanaa baarlamaanka ku sameeyo, laakiin sida caadiga dastuurada aan ognahay waxaa xalka sameeya oo soo dhex gala mataqaanaa qaarkoodna maxkamadda sare, qaarna mataqaana hadday leeyihiin koorta constitutionaale ama maxkamad dastuuri hadday leeyihiin maxkamadda dastuuriga ah ayaa xalka iyo khilaafaadka ka dhex dhaca saddexda laamood ee dowladda ama saddexda awoodood dhex gala. marka saddexda awoodood la leeyahay awoodna waa la dhihi karaa ama howlo ay leeyihiin baa la dhihi karaa. markii laga hadlo baarlamaanka wuxuu leeyahay hawl sharci dejin ama awood sharci dejin. fulinta marka laga hadlayo iyadana sidoo kale hawl wuxuu leeyahay maamul iyo executive oo fulin ah. ka kalena garsoorkana sidaas oo kale wuxuu leeyahay hawl oo khilaafaadka ka dhex dhaca muwaadiniinta ama khilaafaadka ka dhex dhaca dowladda iyo muwaadinka ama dhexdooda khilaafaad ka dhaca sida hadda aan sheegin oo kale ayay xal u tahay. marka kala soocidii aan hore uga hadalnay aan rabaa inaan dib ugu noqdo. waxaa loo kala qaadaa kala soocidaasi inay tahay inay leedahay macno oo mataqaanaa ogaansho ah oo la ogaanayo laamahaas inay kala duwan yihiin oo ay baarlamaan iyo xukuumad iyo garsoor inay kala yihiin. mid waa ogaanshaha ama garashada laamahaasi divisionooda. macnaha kala soocidda waxay kaloo noqon kartaa dheelitiray noqon kartaa. waa marka baarlamaanku uu sameeyo howl maamul ama garsoorku uu sameeyo howl maamul. tusaale waxaan usoo qaadan karnaa xukuumadda markay samayso sharci dejin oo la yidhahdo decreto legi decreto legislativo, ama baarlamaanku markuu impeachment ku sameynayo presidentaha ama uu ogolaanayo bilaanshada oo dowladda, markaas waxay la macno tahay inuu sameynayo maamul. markaasoo kale marka maxaa saas loo sameeyey kala soocidaas? waxaa loo sameeyey dheelitir, in laisku dheelitiro. marka kalena waxay noqonaysaa waa marka ay mid walba uu qabsanayo hawshiisa specificada ah oo isbeshaalaha ah oo ah sharci dejin, mid inuu qabto fulin, midna uu qabto garsoor. aada iyo aada umahadsan tahay. anigoo qaybo ka mid ah mabaadida asaasiga usoo laaban doona waxaan rabaa inaan wax yar uga gudubno xagga dacwadda iyo isdifaaca. xuquuqda uu muwaadinku u leeyahay inuu wax dacweeyo ama isdifaaco. waxaan leenahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwadda sharciga waafaqsan ka furto maxkamada awood u leh. maxaa ku daraysaa xuquuqahaas professor? horta qof walba sida uu dastuurka waa xaq dastuuri ah horta oo qof kasta uu leeyahay inuu maxkamad ka dacwoodo. waxaa kaloo xaq loogu leeyahay asaga in la dacweyn karo naftiisa. haddii marka asaga uu dacwoodo waxaa uu ku filan inuu dacwad qorto oo garsoor uu horgeysto. garsoorahana waa ku qasban yahay arrintiisa in uu galo dacwaas inuu galo. garsooraha ma diidi karo mar haddii dacwad loo keeno. qofka haddii lasoo dacweeyo oo muwaadinka ah wuxuu noqon dacwada mid madani iyo mid waxay noqonaysaa badanaa criminal ama ciqaab. hadday dacwada noqoto dacwad ciqaab ah, qofka lasoo dacweeyey wuxuu xaq u leeyahay horta inuu asaga isdifaaco, naftiisa ahaantii isdifaaco. wuxuu xaq u leeyahay in lawyer uu qabso haddii uusan awood ahayn. waxaa dhici karta marka qofka inuusan u hayninba tabar u haynin lawyer inuu qabto oo dhaqaale ahaan uuna ka bixi karin. markaas wuxuu xaq u leeyahay dowladdana waajib ku ah in loo qabto lawyer loo qabto oo lacag la-aan, yani difaac lacag la-aan uu xaq u leeyahay. wuxuu xaq u leeyahay maxkamadiisa inay noqoto mid publica, mid dadka ay wada dhegaystaan oo meel publica lagu qaado oo meel luuq aan la gelin. sababta maxkamadda looga dhigay mid dadweynaha u furanna waxay tahay in la controlo garsooraha naftiisa. garsooraha waa bini aadan, waxbuu qaldi karaa. laakiin haddii maxkamaddu ummaddoona ay dhegaysanayso awooddiisu wax ku qaldi waa yaraan kartaa. wuxuu xaq u leeyahay meesha asaga lagu dacweynayo dacwadiis ay ka socoto inuu taagnaado oo xaadir u ahaado oo u dhegaysto wixii meesha ka dhacayo. haddii marka u baahdo inuu ama cadeymo keeno ama dad marka ka maqani u baahdo inuu yani awood u leeyahay ka dhacay meesha inuu ogaado macnaha oo isdifaaciisa inuu weeqan yahay in kale si uu ka ogaado. wuxuu asaga xaq u leeyahay qofka lasoo dacweeyey in muddo yar haddii maxkamadda intaan la geeyey maxkamadda ka hor 48 saacadood in arrintiisa loo gudbiyo maxkamad oo aan qofka iska haysanin muddo aan cayinayn. taas waxay keenaysaa hadhow qofkii in lagu xadgudbo arrimihiisa. jirdilka naftiisa waa in laga ilaaliyo oo aan lagu qasbin qofkaas in uu inta la jirdilo qiraal uusan raalli kahayn inuu sameeyo inaan lagu qasbin. qiraalka uu ku sameeyo meel ka baxsan maxkamaddana uma noqon karo caddayn ciddii markaas qiraalkaas wadato. waxaa caddayn u noqon kara keliya
qiraal asaga uu ku sameeyey maxkamadda hortiisa oo garsoorkiisa uu ku sameeyey taas waxaa loola jeedaa qofka inta meelaha lagu soo jujuubo lasoo garaaco wax uusan raalli ka in lagu qasbo wixii hadhow looga dhigo sabab looga dhigo probo looga dhigo xuquuqahaas yuu leeyahay qofka waayahay gacal isla qodobkaas anagoo tixraacayna oo weli waxaan ku jirnaa dhinacii eedeysanaha xuquuqda uu lahaa meel kale ayuu haddana sharciga ku dhahayaa qofna looma ciqaabi karo fal markii uu ku kacay uusan sharciga dembi u aqoonsanayn maxaa ka leedahay arrintaas bismi illahi raxmaan raxiim waa surun qofka marka ugu horeyso lama dhihi karo waa dembiile inta aan qofku uusan dembiga ku cadaanin waxaa la yidhaahdaa eedeysane eedeysanaa la yidhaahdaa dembiile maaha marka qofkaas ilaa lagu helo dembigaas inuu galay iyo inuusan gelin waxaa weeye eedeysane waxaan ka rabaa inaan ku daro oo kale profesorka aan raaciyo sideesa dacwad marka horta la furaayo sideedaba laba barnaamij ayay ku furantaa laba arrimood ayay ku furantaa dacwad waa ciqaab dacwad waa madani dacwadda madaniga qofka ayaa maxkamadda geysta qofka asaga ayaa maxkamadda geysto oo gal dacwadeed ka furta meeshaas markay ciqaab tahayna waxaa meeshaas yimaado oo dembigaas yani ciqaabta sameeyo publica minister maxay ilaaliya la yidhahdo ayaa soo eedda isagaa keeno marka labadaas arrimood qofka lagu soo dacweyn karaa qofka markuu dacweyna asaa furanayo marka kalena asaa xeer ilaaliya dacwad furayo oo saasa dacwad lagu furaa qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu sida profesorka u sheegay in dacwadiisa dhinaca kale markuu kasoo qayb gala dacwaddu in labadooda doodooda si siman oo cadaalad ah loo dhegeysto oo doodoodaas ay noqoto dood furan oo midna aan dooda loo diidin midna dooda laga hayn aysan noqonin waxaa kaloo loo baahan yahay qofku inuu wuxuu xaq u leeyahay qofku haddii masalan dacwadda uu garsooruhu go-aan ka gaaro inuu qofkaas xaq u leeyahay inuu qaato abiil oo rafcaan qaato oo qofka maxkamadda ka sarreyso oo rafcaan u qaato waa dacwooyinka caadiga ah waxyaabaha kale oo profesorku sheegay sida mataqaanaa inuu leeyahay xaq u leeyahay inuu qareen qabsado inuu xaq u leeyahay maxay in dowladdu qareen u qabsato in dacwadiisa ay furnaato xataa mararka qaarkood waxaa dhici karta dacwad inay noqoto dacwad oo maxay ahayd ay noqoto xiran inay noqoto iyadoo laga hadlaayo oo laga fikirayo dhinaca nabadgelyada dhinaca maxay ahayd anshaxa dhinaca maxay ahayd hadday dad yar yar yihiin hadday waxyaaba badan laga fikirayo maxkamadda garsooraha wuxuu go-aan ku gaari karaa inay noqoto dacwadaas dacwad xiran oo aan dadweynaha u furnayn laakiin waxaa muhiim ah oo aada u fiican oo aada u qurux badan in dacwadu ay tahay dacwada furan si uu profesorku u sheegay in garsooraha naftirkiisa xataa dadweynaha meesha soo furiisanaya naftirkooda waa garsoorayaal markay waxa sida u dhacaya af soomaaliya lagu hadlaaya luqada lagu hadlaayo iska af soomaali luqada lagu hadlaayo waa laysa fahmaya labada doodood markaa dhegeysato waxaa kuu caddaan karo in maxay markiiba aada garato meesha ay wax u jiraan qofka inuu markhaatiyaasha la yimaado qofka dukumiinta hadduu hayo markhaatiyaasha waa badan yihiin dad waa noqon karaa caddeemana waa noqon karaan marka qofku wuxuu xaq u leeyahay in wax alla waxa u fasaxaya sharciga inuu garsoorahaas siiyo isla qodobkaas cabdikariin waxaan rabaa arrintan oo ku saabsan mabda'a ah qofna inaan lagu ciqaabi karin waa principio di legalita waaye wax aan sharciga ku qornayn qofka markaasi laguma ciqaabi karo ninka mataqaanaa juudishaha ahna ma samayn karo waxa la yidhaahdo analogia ama mataqaanaa inuu qiyaas sameeyo dembi kaas u eg ama wax lamid ah ciqaab lamid ah ma samayn karo waa marka laga hadlayo xagga ciqaabta midda kale waxa waaye waa presumption de innocence oo ah micnaha qofku inuu leeyahay in loo haysto ninka eedeysanaha ah waa eedeysane waa innocent waay waa ninaan dembi lahayn oo kale ilaa ay maxkamad ku xukunto ay baarto ay ku xukunto ay go-aan ka soo saarto inta ka horeysa waxa weeye waa siduu sheegay mataqaanaa professor principle of legalityga aan sii wadayahay waxaa weeye wuxuu leeyahay latino lagu sheegay waxaa lihi nullum crimen nulla pena sine previa lege penali macnaheedu waxa waaye wax dembi ah ma jiro wax ciqaabna ma jiro haddii sharci uuna horay u tilmaamin taas marka waxaan ka wadaa ninkan xeerdejiyaha wuxuu sameeyaa marka hore wuxuu tilmaamaa dembiga markuu tilmaamana kadib wuxuu u qeexaa ciqaab haddii marka dembiga uu ninkan gal lagu haysto uuna horay loo tilmaamin ciqaabta hore aan loo sheegin qofka ma lagu keeni kara maalan mithaalkaan soo sameynaya haddii ciraaq wuxuu leeyahay xadi wuxuu leeyahay ninkii wax xado oo alaab uusan lahayn xado waxaa lagu ciqaabayaa intaasoo sano haddii marka xatooyada ayna dembiba ahaynba aynan ku qornaynba koysha aynan ku qornayn
oo la yidhaha qof waxbuu xaday oo la baaro qodob xatooye laga waayo meesha qofkaas laguma keeni karo meesha. ciqaabtana waa ciqaabta la qoray, mid kale ma jiri karto. ciqaabta marka waxaa dhici karta laakiin inkastoo 5 sano ama 3 sano wax uu qeexay xeerdejiyaha, waxaa imaan karta marka ciqaabta inay ama ka badato ama ka yaraato. macnaheeda ma aha ninkii waxaa 3 sano 3 sano way ma aha macnaheeda, way ka badan kartaa way ka yaraan kartaa. xaalado badiyaa keeni karo dembiga oo kordhiyo iyo xaalado yaryar kuwaasaa la fiirinaya. marka laakiin guud ahaan mabda'a annaga haddii Soomaali ahaanta hadda aan xeerkeena aan ku noqono, xaalad markay dhacdo waxaa dhahdaa arrintan ma uguba mase waa arrin hore u dhacday. marka annaga wax noqonaya ma jirto. haddii marka la yidhi arrinta waa hore u dhacday, waxaa la sameeyaa xukunkii hore u dhacaa la raaca. haddii la arrintan waa cusubta weli ma arkin arrintan oo kale oo nama soo marin ama inta meesha fadhiso wax og ayna jirin, markaasaa xukun cusub la sameeya. laakiin hadda sida annaga hadda principalkaas oo legalitiga taas waa kasoo horjeeda. wax haddayna jirin qofkaas waa fakana, markaas waa lasii daynaa, lama ciqaab wax laguma samaynayo, kadibaa marka qodobo iyo wax loo sameynaa. laakiin xeer Soomaaliga ama xataa ingiriiskaasuu qabaa, ingiriiskaasuu qabaa, habkaasuu qabaa oo ah in xaaladda markay dhacdo la raadiyo xaalad u eg, haddii la waayo markaas go-aan laga gaaro. taasaan noqon doonta hadhow qodobka u noqon doono. aada iyo aada mahadsan tahay professore. haddaan u laabano dhinacii saddexda awoodood oo aan gooni ahaan uga hadalno madax banaanida garsoorka aan hore usoo sheegnay, waa muhiim in saddexdaas awoodood la kala saaro oo madax banaanida garsoorka oo ka madax banaanaado sharci dejinta iyo fulinta. marka anigoo taas ka hadlayno, qodobka wuxuu dhahayaa inay madax banaanida garsoorka lagu macneeyey in uu noqdo qayb iskeed u madax banaan. waxaa kaloo uu sheegaya garsooraha laguma oogi karo dacwad ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay fal la xiriira gudashada waajibaadkiisa. waxaa kaloo uu sheegaya garsooraha lama baari karo qofnimadiisa ama hoygiisa haddii aan ogolaasho laga haysan golaha adeega garsoorka. marka intaas oo keliya ma lagu tilmaami karaa garsoor madax banaan mise wax kale ku daraysaa gacan? wallahi horta muhiimada ugu weyn garsooraha madax banaanidiisa waxay ku xiran tahay saddexdaas howlahaas oo dastuurka hadda ku qoran uu sheegay, waa waxyaaba ugu waaweyn. laakiin garsooraha waa shaksi aad iyo aad muhiim ugu ah in la dhowro sharaftiisa iyo maxaa ahayd iyo karaamadiisa in la dhowro. waxaa dhacaysa haddii aanan sidaa la yeelin inuu qof walba ku xadgudbo, in la dhibaateeyo, marka waxa saas loo sheegay waxa waaye karaamad iyo wanaag isaga la siinayo waay. marka waxaan leeyahay madax banaanidiisa inaan sida uu ku qoran dastuurka inay ku filan tahay filaya. waaya cabdikariin, maxaa ku darsanaysaa maaragtay isla qodobkaas? waa runtii siduu sheegay. waxaan ku daraa oo keliya micnaha marka laga hadlaayo mataqaanaa guddiga adeega garsoorka ayaa ka mid ah damaanada uu dastuurka siinayo oo ku saabsan madax banaanida iyo habka lagu soo dooranayo oo mataqaanaa lagu magacaabayo iyo dadka ka tirsan. marka waa in laga dhowraa mar walba labada kale oo waxaan ka wadaa macnaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada xubno ka mid ah inay ku jiraan adeega mataqaanaa garsoorka in laga dhowro. mideeda kale inta badan waxaa laysku qabtaa waa fulinta ayaa aada looga dhowraa madax banaanida oo laga hadlayo garsoorka inuu madax banaan yahay laleeyahay. inta badan fulinta ayaa saameyn ku yeelata oo ciday rabto mataqaanaa magacaawda. oo hadda annaga markaan dib ugu noqon oo kale garsoorkii aan lahayn wasiirka cadaaladda ay hoos imaanayeen mataqaanaa waxaa dhici jirtay in maamul oo ka jira mataqaanaa gobolladoo kale in xeraalyaha laga soo ceeriyo, waxyaaba saas oo kale dhici jira. marka garsoorka madax banaanidiisa waxaa damaanad u ah xubnaha ka mid naqanaya mataqaanaa golaha adeeg garsoorka. arrin yarna oo markaan dastuurka sii akriyey oo shakilen waa ka arkay. waxaa dhici karta inay u baahan tahay eray bixin inay u baahan tahay dhici karta. professor maxaa ku darsanaysa isla qodobkii madax banaanida garsoorka? horta waa su u sheegay cabdikariin, su u sheegay waxaa laga ilaaliya waxa waaye fulinta. haddaad si u fiirisidne sida hadda u sheegay cabdikariin, garsoorayaasha waxaa magacaabi jiray wasaaradda laga soo magacaabi jiray, wasaaraddaa bedelayso, wasaaraddaa mushaar siinayso, wasaaradda dalac siinayso. marka xoogaa meeshaas garsoorkii ma madax banaana. laakiin soo hadda cabdikariin uu sheegay haddii loo sameeyo guddigaas waa la bilaabay Soomaaliya marka hadda ugu dambeysay oo dhacaysay markii dowlad markay dhacaysay waa la bilaabay guddigaas, waa la bilaabay asagoo socdo ayay dowladdii burburtay oo aan weli dhicin. marka mushaarsiintooda iyo dalacaadooda
marka la qoraayo iyo waxaas oo dhan guddigaas hoos imaan doona marka xoogaa meeshaas madax banaaniya ka jirto. garsooraha laguma ciqaabi karo hawshiisa markuu ku jiro. macnaheedu waxa waaye garsooraha xukun soo saaraa xukunka daduu dhibaa qasab daduu dhibaa. waxaa laga yaaba inuu qaldami naftiisa, waa bini aadan uu qaldami karaa. haddii asaga ayna ka ahayn inuu wax qaldo ayna ka ahayn oo dadaalkii iyo wixii loo horkeenay iyo caddeymihii markuu fiiriy ay saas ula muuqatay, ciqaab ugama iman karta arrintaas. shaqo loogama qaadi karo, mushaar loogama goyn karo. macnaha waxaa laga wadaa garsoorka waxaa laga yaabaa inta wax uu qalad uu dhaco in uu xukun qaldan rido. diinta islaamka waa qabtaa nin garsoor asoo dadaalaya hadduu qaldamo wuxuu leeyahay ajir, hadduu uu asiibo arrintiina wuxuu leeyahay 2 ajir. macnaheedu waxa waaye markasta dadaalka laga fiirinaya. haddii laakiin asaga uu meeshaas munaafaqad ka wato, taas waxaa ka dhalanaysa fal dembiya ka dhalanaysa marka. mahadsantahay hayaga waxyaabaha oo loo leeyahay garsooraha laguma ciqaabi karo shaqadiisa ama waxa ku dhex jira laguma ciqaabi karo. macnaha marka hore waxaa la sameeyey maxkamada kala sarreeyo ayaa la sameeyey. marka maxkamadaas kala sarreeyo waxaa loo sameeyey waxa waaye in qofkan haddii uu qaldamo midda ka sarreyso inta loo dacwoodo wax lagu soco middaas wax lagu soco in lagu soco ayaa loo sameeyey. intaa ku dar lahaa aada mahadsantahay. aan uga gudubna haddee kuwa hadda ka dhawaajiyay cabdikariin iyo professorkaba guddiga adeeg garsoor markaa ka hadlayna oo la yidhaahdo Judicial Service Commission. waxaan dhahnay guddigaas wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. wax noogu sheegi kartaa? 9 xubnood sida uu qabo dastuurka ku-meelgaarka ah wuxuu leeyahay waxaa ku jiro macnaha maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah, guddoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha guud, 2 mataqaanaa qofood oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa qareenada, iyo guddi madax banaana guddiga mataqaanaa ilaalinta oo mid ah guddoomiyihiisa ilaalinta xuquuqda bini aadanka oo mid ah. wuxuu leeyahay macnaha 3 ayaa golaha wasiirada ay soo jeedinayaan, waxaana dekreet kusoo saaraya oo ku daraayo madaxweynaha. taas markaas intaasay 9 ku yihiin. weli anagoo ku jirna 9kaas xubnood ayuu meel dastuurku wuxuu ka dhahayaa in 9kaas xubnood ay shaqaynayaan muddo 4 sano ah, kadibna loo soo dooro 4 sano kaliya. maxay taas muhiim u tahay? wallaahi horta sideedaba dadku waxay muhiim u tahay dadku marka ay muddo 4 sano shaqeeyaan. aniga waxay ilaa 4 sano waa wax tiro badan oo aad u badan waayo. marka dadkaasi marka waxay waa la bartay, shaqaaliyay barteen, garsooriyay barteen, hawshiyay barteen. marka waxaa dhici karta halkaas inay hadday soo noqdaan oo 4 sano dambe ay soo noqdaan in meeshaas musuqmaasuq iyo dhibaato ay ka timaado ay dadka ay barteen. marka waxaa fiican mar walba shaqada inuu markay 4 sano u dhamaato ayagoo xataa nadiif ah, ayagoo xataa oo shaqo fiican gutay, in maxay ahayd dad kale cusub oo yani weji cusub inuu meesha yimaado. waxay muhiim u tahay kobaca iyo wada shaqaynta shaqada la hayo ayay u taan filaya anuu iskule saas u qaado. haya cabdikariin isla qodobkaas isla qodobkaas waa sida u sheegay, laakiin meel kalaan rabaa inaan xoogaa tilmaamyar ka bixiyo oo dastuurka qabiil qoraalka marka laga hadlayo qaab dhismeedka maxkamadaha marka laga hadlayo waxa way si waadix ah umuusan sheegin, inkastuu leeyahay qodob kale waxaa lagu sheegi doonaa sharci qaab dhismeedka iyo heerarka uu kala yeelanayo. waayo qaab dhismeedka uu sheegayo waxa waa inay jirto maxkamad dastuuri ah iyo maxkamad maxaa la yidhaahdaa sare iyo maxkamadaha dowlada goboleedka federaalka maxkamadaha ka jira ayuu leeyahay. heerka kalena wuxuu soo gelinaya iyo guddigan adeeg garsoorka ayuu dhismaha ku daraa. marka halkaas annaga heerarkii aan naqaanay oo ahaa micnaha habkii mataqaanaa uu dhacayo xitaa in loo qaato racfaan loo qaato oo prima grado, segundo grado, terza grado, habkaas iyo waxyaabahaas wuxuu uga hadli doonaa heerka 1, heerka 2, heerka 3 wuxuu uga hadli doonaa saan isleeyahay, iyo sida mataqaanaa racfaan iyo lagu kala qaadanayo wuxuu uga hadli doonaa mataqaanaa qaanuunkaas uu leeyahay baarlamaankaas samayn doono. aniga saas ila muuqataa. arrintan kale hadda i weydiisana waa ku raacsanahay siduu wax ku sheegay. wax yar aan ku dari lahaa masalan waxaa hadda dhibaato ka jirta dalku waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa federaal oo federaal buu noqonayaa. gobolada yaa dalki uu maamul goboleedyo ayaa jiri doono. dastuurka ma cadda maxkamad saraas jirayso yiri maxkamadaas sare ma xamri ma dowladda dhexe ay u joogaysaa maamul goboleedyada maxkamad sare yeelanayaan maxkamad sare
yeelanay ma yeelan doonaan marka waxaa ka baqayaa aniga oo aan ka cabsanayaa haddii maxkamad sare ay maamul gobol yeelato oo midda federaalka ay maxkamad gobol yeelato oo maxkamad dastuuri ay jirto oo maxkamad rafcan ay joogto maxay ahayd gobolka jirto qaanuun kala hage in la helo waa laga maarmaan marka waxaan dhihi lahaa arrintaasi in si fiican looga fiirsado hada kuma caddo dastuurka qabi qoraalada aad uguma caddo waxaa samayn doonaa li xeer soo bici doono ayaa samayn doono marka waxaa fiicnaan lahayd in arrintaasi laga sii digtoonaado oo hadda laga sii fikiro sidii loo kala xadayn lahaa maxkamadahaas ama maamul goboleedyada iyo federaalka la samayn doono si loo kala la sameeyo aada maasantaha gacal waqtigoona u saamaxayn dartiis waa su-aashii u dambeysa idinka dhigaan weli waxaan ku jirnaa xubnihii adeega garsoorka oo aan dhahnay 9 xubnood waa inay ahaadaan 9kaas xubnood yay noqon karaan waxay noqon karaan aan leeyahay kuwa ugu khibradaha badan dhinaca cadaaladda waa inay noqdaan xubnaha wasiirada ee mas-uulka ah maamulka cadaaladda iyo garyaqaano qualitygooda ama tayadooda aada u fiican tahay iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada ama jaamacadaha sharciga iyo weliba xubnaha ururada bulshada kuwooda u ololeeya xuquuqda aadanaha waxaan su-aal ka qabaa marka xubnaha wasiirada ee mas-uulka ka ah maamulka cadaaladda marka la leeyahay maxaa loola jeedaa wasiirka cadaaladda wasiir ku-xigeenka cadaaladda ama wasiir maxay kula tahay inay noqon doonta cabdikariim macnaha marka arrintaas uu ka hadlaayo looga hadlayo guddiyada madaxa banaan guddiga maxaa la yidhahda adeega garsoorka marka looga hadlayo ayaa shakigaas imaanaya laakiin qodobka ka horeeya oo ka hadlaya xubnaha intay ka koobnaanayaan ayaa noo caddeeyey inay xubnaha sare ee cadaaladda inay meeshaas ku dhigaan ayaa wanaagsanayd ee wasiirada ka saaraan waxaa loola jeedaa se aniga iga muuqato qodobka horena uu uga muuqdo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha mataqaana maxkamadda dastuuriga iyo xeraalyaha guud saddexdaas ayaa ah hogaanka sare ee cadaaladda marka hogaanka sare ee cadaaladda inay meeshaas dhahaan ayaa wanaagsanayd haddii kale waxay u ekaanaysaa inay labada qodob iska hor imaanayaan oo ay khilaaf u jiro waxaana rajaynaa in meeshaas la saxo oo ay u baahan tahay eray bixin okay sidaa sheegtay eray bixin ay u baahan tahay inta kale si waa ku raacsantihiin inay qareenada ahaadaan dad oo quality leh waa inay ka mid noqdaan macallimiinta jaamacadda iyo jaamacadda sharciga iyo dugsiga sharciga wax ka dhiga maxay horta aniga cabdikariim baan ku raacsanahay doodiisa laakiin waxaan rabaa inaan ku daro sideedaba horta waxa laga hadlaayo waa qaanuun marka laga hadlaayana ma aha qof walba inuu iska yimaado meesha oo maxaa ahayd oo qof walba iska yimaado meesha ma noqon karto waxaan anigu ku dari lahay oon dhihi lahay dad maxkamadda dastuuriga marka la samaynayo dad yaqaano sharciga soo bartay hadduu ahaan lahay mid qaanuun madani ah ama qaanuun islaami ah sharci islaami ah ama sharci madani midii warraa soo bartay qofka waa inuu yahay nin wax ka yaqaano arrimaha dastuurka wax ka yaqaano dadka ka yaqaano وانا امسنا اني نقران معناها ان صدح nin hadda ugu sareeyay sida gudoomiyaha tasare gudoomiyaha dastuuriga garyaqaanada macallimiinta sharciga intaas in lagu koobo laga soo xoro wala kale u olole waxa xola urso isticmaalka garabsi waa tahay dhegeystayaal waxaa intaa inoogu dhammaaday barnaamijkii 14aad ee aan uga hadlaynay hanaanka dawliga ah iyo garsoorka waxaana maanta barnaamijka marti inoogu ahaa brofesor maxamed nuur cadow oo brofesor ka ahaa kuliyaddii shuruucda ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed maxamed axmed gacal oo garsoore ka ahaa maxkamaddii degmada qoryooley iyo abukaata cabdikariim maxamed soomaali oo ah sharciyaqaan ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed dooda barnaamijkana waxaa inoo qaybinayay cali shariif guud ahaan barnaamijkii dhegaystayaal inta ayuu ku dhan yahay intaynu dib isku maqli doonno waa ayaanla xuseen cabdi oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkanna waxaa soo saaray aamin media limited waa iskaashi gobanimo waa adeeg bulsho sugan aamin media